بسم الله الرحمن الرحيم داوديال مظاهرات كاس maanta wuxuu ka dhacay magaalada baran wuxuuna salka ku hayay dilkii loo geystay ilaahay u raxmo ilaahay u naxariisto caaqil cumar. dadku way weerarsan yihiin, waxay leeyihiin ilaahay hadda xilligan la taagan yahay caaqilka cidda dishay maxaa loo laayahay. caaqilka cidda dishay maxaa loo laayahay. puntland bay farta ku godneed, runtaan ka hadlaynay. puntland bay farta ku godneed sababo jira awgood, laakiin ilaahay hadda puntland iskama bariyeelin. saciid cabdullaahi deni madaxweynaha puntland beejkiisa waxaa gacanta ku hayo wiil warsangeli ah ayaa gacanta ku hayo. waad garanaysaan ninka isaga waa nin wariye ah, waa taqaanaa. telefishinkii qaybta waxaa madaxtooyada puntland state iyadana iyagaasa gacanta ku haya. caaqilka maalinkii la sheegay in diyaarad ay duqeysay ee uu dhintay, dabraani mu awoodi waayey inuu soo qoro inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun, ilaaha u naxariiso nabadoon cumar oo maanta ku geeriyooday duqeyn ka dhacday puntland. intaa keliya ilaahay mataqaanay intuu ka geeriyooday ilaah u naxariisto. ilaa ay hadda xilligan la taagan yahay puntland xitaa tacsiib wax yar lagama hayo. tacsiib yar lagama hayo. markaan dhanka kale ka fiirina, ninkan puntland buu la socday, waan ogeyno waqooyi bari ma rabin. wuxuu ka shaqeynaya nabadeyntii mataqaana cerigaabuu ka shaqeynayay. wuxuu ka shaqeynayay puntland in mataqaana ay hartisooda sii ahaadaan. ma jirin yaa la yiri ilaa hadda xilligan la taagan yahay khilaaf u dhexeeyey ninkan iyo puntland. markii laga reebo xoogaa dad baa waxay isku qabteen buraha calmadow, taana wax saa usii buura mataqaanay maaha. ana marka waxaa isweydiiyey, dadkan isweydiinayaan puntland maxay uga tacsiyeen weyday. waayo dad kale oo dhintay oo xitaa bulshada aan saameyn weyn aan ku lahayn yaa tacsiyoodii mataqaana lasoo qori jiro la jiri aan naxariisto. waayo dadka waxay fiirinayaan markii qof weyn dhinto in ragga waaweyn ee madaxda inay ka tacsiyaan ay soo qoraan. ma jirin. okay, taa way dhacdayba. puntland maxay u sheegi la-dahay haddana dadka ka dambeeya duqeyntan ka furi gudaheeda dowladaha ay yihiin. baaritaan baa la wadaa, haa baaritaan baa la wadaa, laakiin dowlado waxaa jira markay duqeyn ay geystaan sheegto, sida maraykanka iyo imaaraadka waan ogeyn. haddii la dhihi lahaa gantaal ka imaaday xuutiyiinta ku dhacay, haddii la dhihi lahaa lafteeda oo taa la dilisan lahaa, puntland baa noo sheegi lahaydba oo dhihi laha gantaalka ka imaaday yaa ku dhacay. laakiin reer miigi meesha joogay maxay dhaheen? reer miigi meesha joogay waxay dhaheen diyaarad baa ninkan duqeysay, 3 gantaal baa ku dhacday. gaarigan sida uu noqdo u baaba-ay nin kastaba tana u arkay. halkaas marka puntland inay iska bari yeelaan arrintan iyada ah yaa loo baahnaa. inay nabadoonkooda u tacsiyeeyaan yaa loo baahnaa. lagama hayo intii midna. haddii cadow kale usoo dhuuntay af usoo duubtay oo uu dilay, iyaga xaggood oo marka maxaa laga hayaa? waxba ilaad wax laga haya mataqaana malaha. anaa kulli wax ma arag, adiga in aragtay ma garanayo. haddii la yiraahdo dad baa waxay dhaheen maanta soo diriirsanayeen waxaa ka dambeysay dowladda federaalka soomaaliya. haddii duqeynta dowladda federaalka soomaaliya ka dambeyso oo puntland ay ogta ama aysan ogeyn, puntland mar hore sheegile mar hore in la yirahdo caydiid yaa joogo markiiba soo fadhiisto yuu dhihi lahaa mataqaana waxaana duqeysay dowladda federaalka, way nagu soo xadgudbeen,
nabadoonkaana iigaa dilay mar hore u sheegi lahaa inta lasaba soo gaareenba danta laga lehay waa marka in suldaanka in la dilo danta laga lehay waa maxa waayo waxaan ognahay puntland hadda inay doonaysa dad inay rabto oo ah dee nimankii warsangeliga dhulbahante puntland ay ka tashadeen qaybo ka mid ah kuwa degan dee puntland kama hadlayo laakiin kuwii darfaha xigay way go-een sooma say sheegteen oo maamul bay samaysteen marka puntland waxay u baahan tahay inay hesho iskaashato iyo garab bay u baahan tahay xilligan marka ma garan karo waxaa ku xumbaarayo in ay xilligan ay suldaanadooda inay dilaan aniga kulli ma aqaano adiga haddii aad garanayso waad noo sheegi kartaa marka arrintii ahayd kabtan ayub ee maalinka hore uu soo qoray kabtanka wuu degdegay si aanan caadi ahayn buu u degdegay wuxuuna ka fiirsanayn buu mataqaana soo qoray isagaa god ku dhacay in adeerkii ah nabadoonkiisii ah oo la dhibaateeyey oo la dilay intuu ka fiirsan lahaa ama ka aamusi lahaa ama u tacsiyan lahaa yaa wuxuu yidhi abeese weyn buu siday tiibu maanta meel uu ka maro ceebteedii buu laayahay abeesadin meesha laga waa wax abeese ah xataa iska daa abeese xataa mas xitaa meesha laguma arag mas yar xitaa laguma arkin abeesadi wuxuu ka wada garanaysaa cabdiqaadir muumin buu ka wada cabdiqaadir muumin iska wadaaya xitaa kuwii yararkaa masaska yararkaa xitaa laga waa keligiiba ku jira meesha nin walaalkii oo la dhashay nabadoonka yaa dhexda u xirtay intuu gaari u tagay wuxuu yidhi cid u tegi karta ma halkaa ka istaaga halla baara gaari yaa saara nabadoonka keligii cid kale ma saarneen ii sheego sababta loo dilay baa idinkaga baahan ilaa hadda jahwareer baa taagan ilaa hadda jahwareer baa taagan shib waa war aamusa xaalku halkaasuu maraya marka dadka shacabka ee hadda mudaharaaday arkaysaan ee maanta baran ka mudaharaaday iyo xabadda lala dhacayna waxay diidanayeen arrintaa iyada ah iyo aad yaa uga hor imaatay intaasan barnaamijkan aana kusoo afeeda la wadaaga saaxiibadii